السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو dhawaad saaxiibada qiimaha iyo qadarinta mudan ku xiran janaalkan walaalaha family waa mar kale muuqaal cusub oo idin kaga diyaarinay musalsalka walaalaha maxaa cusub sidoo kale maxaa ku soo kordhay. Waata daawadayda markii soo booqatay janaalkan subscribe inoo saar sidoo kale muuqaalkan like noo saar waa maasantay taa ka bacdi ee soo dhawow. hadba xalqadii u dambeysay 74 ayaa runtii waxay ahayd xalqad aad iyo aad u xiiso badan insha Allah muuqaalkan waxaan isku day doonaa inaan idin kula wadaago macluumaadada kuwooda ugu muhiimsan iyo kuwooda la hubo iyo sidoo kale kuwa la filayo. haddaba macluumaadka u horeeya ee maalmahan baraha bulshada la dhaxwada waxa weeye laba qof ayaa isdili doona oo gacantooda isku dili doona. labada qofna kulli markaad maqashid yani niyadaada waxa kaaga soo dhacaya Suuse iyo sidoo kale yarkii toolga lagu magacaabay. Suuse marar badan yani inay iskuma dayin balse in ay arrinkii dhacay qadir dhimashadiisa inay sheegtay isku dayday ayadoo isku daysay inay sheegtana waxa halkaasi ku dhintay kan. marka waxa laga yaabaa Suuse xalqadaha soo socda inay isku daydo in ay istisho sidoo kale toolga ayaa arrinkaasi uga dhow laakiinse ma suurtagali doonto labadooda waa la badbaadin doonaa sidaasina taxanaha kaga ma baxayaan. waa tahay macluumaadka kale waxa weeye haddii xastiin ugu horeyntii caakif xalqadii u dambeysay wuxuu yiri fiidiyogan qof walbo arka muu dhimanayaa camal. ugu horeyntii hadaba aan idin faasiyo fiidiyogan qofkii u horeeyay ee ku dhintay anu waxaan filayaa in uu ahaa ninkii lagu magacaabayay dabcan Rasuul Oscar ya beerka abihiisa. fiidiyogaasna wuxuu ahaa fiidiyoga caakif markuu uu dilay Umar iyo Aasiya iyo aabahood iyo hooyadood arrinkaas ayuu fiidiyogaas ayuu Rasuul Oscar arkay kadibna saadarteeda iyagoo istadagaalaya sidaas ayuu Rasuul Oscar ku dhintay. sidoo kale qofkii labaad dhintay waxa weeye kan ay hadana fiidiyogii ku dhintay oo asagoo difaacay fiidiyogan iyo arrimihiisa ayuu kana sidaas ku dhintay. marka waxa la leeyahay oo baryahan Twitter kala dhaxwada marba hadii fiidiyogan qof walba uu ku dhimanayo anaguna iskooda ognahay qof walba fiidiyoga arkay inuu dhimanayo hal fiidiyo kaliya hare fiidiyogaasina waxa weeye fiidiyogii beerkii haye mobilka Rasuul Oscar ku jiray talo xalqadaha soo socda ama beerka markuu fiidiyoga arko maskiinka asaguna talo muu dhiman doonaa. waa runtii mid aadka la isu weydiinayo adiga maxay kula tahay daawade beerkii maskiinkaas haduu fiidiyogaasi arko ma waxay kula tahay in laga takhalusi doono. sidoo kale dabcan xalqadii u dambeysay Layla way dhimatay yani Layla sidaas ay nagu macaslaamisay. aniga ahaantayda fikirkayga kaliya ka hadlaya waxaan moodi jiray gabadha Layla lagu magacaabo in ay abid musalsalka dhamaysan doonto soo dhaweynta loo muujiyay hadii noqoto dhanka real life-ka Instagram si loogu soo dhaweynaya haddana in ka soo qurux badan loo macaslaamiyay balse waxaan islaha gabadhan way dhamaysanaysaa Umar markuu ogaado Suuse waxay samaysay oo dhan gabadha uu guursan doona ama isku hari doonaan waxaan islaha waa Layla balse ma suurtagalin arrinkaasi oo Layla sidaas ay ku dhimatay. sidoo kale waxaan wada ognahay in aysan isku waari doonin Suuse iyo Umar waa macquul wax walba waa macquul waana macquul in la heshiisiyo inkastoo de gabadhan Suuse aysan dambigeed wax weynba uusan ahayn kaliya dambigeed uu yahay qarin oo kaliya qarin hadii qof wax ka qariyo ama sir weyn oo aad muhiim kuga oo ka qariyana waxa u yar cafis 10 sano ayaad ku xukumaysaa in islaamka kadibna waad isku soo laaban kartiin. marka yani ma sheegi kari in ay Suuse iyo Umar wada waari doonaan kulli Suuse xabsiga way galaysaa muddo 2 year ba u yar ama 2 sano oo xoogaa way gali ama 5 bilood inkastoo Suuse de kulli dambigeeda wax wada garanaa wax dhibaato ay geysatay ma jirto kaliya gaariga qadiir lagu dhiftay ayay lahayd oo qofka gaariga ka mas'uulka ah weeye ayada waajibkeeda ama waxa laga rabo waxa weeye makti qadiir balse dilaaga saxda ah ee arrinkan ka dambeeyay waa Melissa iyada hadii la soo qabto ama hawaalaato ama yani caadi ah noqoto xabsiga xogaa waa lagu deeniyaa hadii waarantayna marka dambe waa laga soo saari doonaa oo wala la tacaali doonaa hadii kale ay caadi tahayna xabsigaasi Melissa ku waaraysaa balse Suuse hadii ay magtaasi bixiso oo la heshiisiyo reerka qadiir iyo reerka Suuse ay heshiiyaan gabadhaas wax dambiya male kadib hal caqabad oo kaliya soo hari waxaana weeye Suuse iyo Umar ay ku heshiinayaan kulli arrimahaas waa arrimo ana u dhaweyno dhamaadka musalsalkan arki doono kaliya waxaan jeclaysay inaan soo xasuusiyo balse asxaabtana qiimaha badan Layla sidaas ay naga baxday. sidoo kale maalmihii u dambeeyay horta xastiin kuubka caalamka intii uu socday anaga xitaa mashquul baan galay kanaalkan xitaa waxaan soo dhigeen dhanka kale
musalsalka walaalaha korka aad u weyn ayaa ku yimid maalmahaas dhan fiidyada toddobaadkiiba hal fiidyo bas aan soo gelin jiray marka musalsalka walaalaha maalmahaas waxaa ku yimid korka aad u qurux badan runtii ilaa haddana korka ciwa u jira totalkuna 9 waaye balse dhibaatada jirta waxaa tahay musalsalka yaali jaabkiini wuxuu xiray iskoor wuxuu qaatay 3 jaa-iso oo runtii la rabay in musalsalada kale qaar ka mid ah ay qaybsadaan sanadii 2021 kaalinta koowaad waxaa galay musalsalka Cusmaan oo ah xalqadiisii waxaan filayaa meelaha 60 mise 50 40 meelahaas xalqadu ahayd waxayna noqotay xalqadii 2021 u daawashada badnayd balse hadda 2022 saddexda xalqadood ugu daawashada badan ba ama saddexda xalqadood ee ugu ratingka sareeyay waxaa qaatay isla yaali jaabkeena musalsal sidaas edit musalsalada Turkiga muusan soo marin xitaa caalamka ayuu ka yaabiyay runtii aniga waan la yaabay daawashada xoogan ee musalsalkaasi loo muujinayay xiisaha badan ay dadku u qabaan kulay muuqaalkan waxaan ugu talagalay xoogaa macluumaad inaan idiin sheego sidoo kale gooskooska ayaa isaguna muhiim ah oo mawduuca dhammaan gooskooska kaga hadlayna muuqaalkan waa gooskooska waa goorma la soo deynaya gooskooska Kardashian horta wada garanaysiin haddii ay dhacdo maalin in gooskoos la soo deyn waayo waxaa la soo daayaa maalinta Arbacada ama maalinta Khamiista waa haddii ay dhacdo maalinta xalqada la daawanay in gooskooska la soo deyn waayo Arbacada ama Khamiista ma dhaafto xitaa Jimcaha badi ma gaadho oo Jimcaha mararka qaar gooskooska labaad ayaa soo bixi jiray marka maanta Arbaca ama bari oo Khamiisa haddii gooskooskaas uu ku soo bixi waayo laga yaabo in xalqada xoogaa haddana ay ku timaaday dabcan joojin sababtoo Duruuk ayaa markii u dambeysay maqnaa Spain ku maqnaa waxaa laga yaabaa xalqada 75 baad ugu soo socotay Soomaha waxaa laga yaabaa 77 meelahaas in duubisteedu ay khalkhal gashay maadaama 76 75 ba ay duuban yihiin marka gooskooska ilaa maanta ayaan rajaynayaa inuu soo bixi doono muuqaalkan intan uu ka yahay waana saaxiibkeena Khalida wassalaamu calaykum waraxmatullaahi ta'ala wabarakaatuh